Assalaamu calaykum. Maanta waxaynu ka hadlaynaa shaaha cadayska iyo caafimaadka. Haddaba haddii aad jeceshahay cabidda shaaha, badanaa waxaad u cabtaa si aad ugu kifaaxdid. Taasina waa mid dadkoo dhan ka siman yihiin marka laga reebo dadka qaarkood oo caafimaad ahaan u cabba. balse dadka cabba badankoodu waxa ay ka dhigteen caado, halka qaarkoodna uu yahay balwad aysan waqti badan ka maqnaan karin. sidaas ay tahayna in badan oo dadka shaaha cabba ka mid ah waxay joogto ka dhigteen inay shaahooda caana ku daraan. hadduusan caana lahayna dhadhan uma yeesho, laakiin saynisyahanada cilmiga caafimaadkuna waxay dhowaan sheegeen in hal dhibic oo caana ay gebi ahaanba bedeli karto faa'iidadii shaaha aan caanaha lahayn uu jidhka u lahaa. balse waa su'aal isweydiin mudane, sidee bay taasi macquul ku tahay? ugu horeyn daawade, shaaha waxa uu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo qofka caafimaadkiisa u wanaagsan, kuwaasoo laga soo gaadhay ama laga soo ogaaday dadkii xilliyadii hore shaaha caanka ku ahaa sida Hindida iyo Shiinayska. haddaba shaaha waxaa ku jira waxyaalo badan oo nuxur dabiiciya leh, kuwaasoo caafimaadka u wanaagsan, wuxuuna shaahu qani ku yahay fiitamiino jidhku u baahan yahay. sidoo kalena wuxuu jidhkeena ka caawiyaa iska caabinta cudurrada iyo weliba jeermisyada soo weerara. sidoo kalena waxa uu ka qayb qaataa ilaalinta cabirka cadaadiska dhiigga iyo cabirka sonkorta ee ku jirta dhiigga. wuxuu kaloo yareeyaa dhaawacyada soo gaadha unugyada yaryar ee xubnaha jidhka ku samaysan yihiin. sidoo kale waxa uu yareeyaa ama xadidaa cudurrada wadnaha iyo halbowlayaasha jidhka. intaa kadib, dhammaan faa'iidooyinka aynu soo sheegnay waa kuwa u wanaagsan caafimaadka qof walba, waxaana dhammaantood dardargelinaya cabidda shaaha bigayska ama shaaha aan caanaha lahayn. laakiin haddii aad cabto shaaha cadayska ama shaaha caanaha leh, dhammaan qodobada iyo faa'iidooyinka aynu soo sheegnay meesha way ka baxayaan. haddaba waxaa isweydiin mudan, sidee bay caanuhu u saameynayaan shaaha? haddaynu taa ka jawaabno, isbarbardhig lagu sameeyey dadka cabba shaaha madow oo aan caanaha lahayn iyo kuwa cabba shaaha caanaha leh, waxaa lagu ogaaday dadka cabba shaaha bigayska markastay shaahaas cabbaanba in xididadoodu ay dabcayaan islamarkaana isu socodka dhiigoodu uu siyaadayo. balse dadka cabba shaaha cadayska arrintaas laguma arag. sidaa daraaddeed arrintaas waxay khubarada caafimaadku ku qeexeen in sababta ka dambaysa ay tahay borotiin loo yaqaano kaysanis oo laga helo caanaha. borotiinkaas ayaa la sheegayaa inuu yahay shayga beddelaya saamayntii wanaagsaneyd ee shaahu ku lahaa caafimaadka dadka cabba. haddaba haddii ay arrintu sidaa tahay, adiguna aad tahay shaahayacab, maxaa lagaaga baahan yahay inaad samaysid? ugu horeyn waxaa iska cad in dadka shaaha cadayska jecel in aysan si fudud iskaga dayn karin. haddaba si caafimaadkaaga iyo rabitaankaaga kale ee nololeed ay iskugu dheeli tirmaan, waa inaad samaysaa jimicsi mar walba oo aad shaaha caanala cabtid. waayo jimicsigu waxa uu ogolaanayaa jidhka inuu dhiigu si fudud u qulqulo, islamarkaana shaqada wadnaha iyo sanbabadu waxa ay noqonayaan kuwo hagaagsan. dhinaca kalena tallaabooyinka kale ee ku habboon dadka shaaha badan cabba, siiba kuwa cadayska cabba ama shaaha caanaha le cabba, waa inay shaaha cadayska ku beddeshaan shaaha cagaaran oo caafimaadka iyo jidhkaba aad ugu wanaagsan. ugu dambayn, muhiimadda koowaad ee nolosha qofku waa inuu ku noolaado nolol wanaagsan oo caafimaad qabta. sidaa daraaddeed mar walba caafimaadkaaga ka hormari rabitaankaaga kale ee naftaadu rabto. muhiimadda mowduuceenu ma aha qof kasta oo daawanaya inuu joojiyo cabidda shaaha cadayska ee waa qof kasta inuu fahmo faa'iidada shaaha uu leeyahay marka aan caanaha lagu darin. sidaa daraaddeed waxaan kugu boorinayaa daawade inaad qaadid tallaabada u wanaagsan caafimaadkaaga, ama haddii aanad joojin karin shaaha cadayska, inaad isku daydo inaad yaraysid cabiddiisa badan, maadaama faa'iidada ku jirta aysan la mid ahayn shaaha bigayska ama shaaha madow ee aan caanaha lagu darin.